maamulka gobolka hiiraan heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan bulshooyinka magaalada beledweyne baada saxaafadda iyo guud ahaan dadka sharafta badan ee ku sugan xulkan iyo guud ahaan gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne waxaan ku salaamayaa salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda salaam alla ayaa mahaddaas iska leh alxamdulilah ayaan leeyahay runtu waa ilaahay mahaddiis haddaan maanta magaalada beledweyne annagoo labada haba yaraatee cid wax naga gaadhayna aysan jirin aan ku wada sugannahay ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa waxaanu halkaan aan uga mahad celino cid kasta ee gacan ka geysatay inay sida wanaagga ay u dhacdo oo annagoo labada haba yaraatee wax dhibaataan ay la dhicin aan isu imaado cid kaste alla ka sokow cid kasta ee gacan ka geysata waxaan leenahay waa mahadsantihiin hadday tahay duubabka hadday tahay wadayaasha dhaqanka hadday tahay bulshooyinka gobolka hiiraan hadday tahay dowladda hirshabelle mas-uuliyiinta halkaan uga sugnayd ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee amniga ka shaqeeyey runtii cid kasta ee gacan ka geysatay inaan si nabada isuga nimaado waxaan leeyahay waa mahadsan tahay wanaaggaas iyo dadaalkaasna ilaahay ka abaamayo runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sida deeqada ee aniga waqtigii la socda ay ugu soo dhaweyseen magaalada beledweyne oo qalbi furaanka iyo wanaaggaa hor ugu soo dhaweyseen waa ka mahad celinayaa waan ognahay dalka soomaaliya meelaha ugu ilbaxsan ayay ka mid tahay oo gobolka hiiraan ka mid yahay waa dadka mas-uuliyiintii dalkan habeen kala duwan ka soo qabtay goboladii ka soo jeedin waa dad xalaaliyiin ah runtii waan ogaay inay maalin dhacayso sidaa oo kale iga dhibaata dhicin idinkoo faraxsan anagoo faraxsan inaan isu imahayn weeye waxaan halka sare ugu dhufinaynay oo dadkayna ugu dhufinaynay waxay ahayd dhammaan inay sidaa dhacaysaan ogeyn hal qof oo ummadda hirshabelle inay wax naga gaaraan ama naga dhimato ama naga dhaawacantaan ma rabno waan rabaa haddaan isu soo hor fadhiisanno inaan la warranno waan daawoodaynaa tabasho kasta ee jirtana xalal loo haddii ay tahay ka waxaan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo cid kasta ee wax tabanayso inaan la fadhiisayno tabashada ay qabto hadday mid deegaan tahay iyo hadday mid qabiil tahay iyo hadday mid qoys tahay iyo mid qofeed hadday tahayba waan ka qanci doonaa haddii ay tahay ka aan warrano waa aan walaalowno dadkaan dadkaa ka dhaxeeyo deegaanaa ka dhaxeeyo dowladnimaa ka dhaxayso wardalashaa ka dhaxayso ismawta ee samayn waayo waa la isku rasban yahay horena waa la isula jiri jiray haddii la raalli ka noqdo waana la isla jiraa haddii la yidhahdo mas-uuliyaddu waa meerto ninba maalin oo qabaa shalay waa lahaayay maanta waa lahaayaa birina waa lahaynayaa laakiin wada dhalashada iyo dhaqanka iyo dowladnimadu way jiraysaa haddii la raalli ka noqdo cid kastaba maalinkay joogtaa la raba inay ummadda isku hayso si wanaagsanna ay isugu hayso oo dadka iyagoo isjecel in la isku hayaa la rabaa waxaan isleeyahay waa guud annagoo nabada haddii aan isu imiday sanadka taga waa isleenahay wax badana idin qabsoomi lahaay haddaan khilaaf iyo wax kala tabasha jirin wax badana idin qabsoomi lahaay oo horumar aan isleenahay laakiin inta dhiman haddaan alla tala saaranno tawfiiqna nalanno waa huba wax badan aan loo qabsoomaayo waxaa laga rabaa ummadda hirshabelle in taladeeda la mideeyo abaaraa jiro
amni darraa jirto runtii waxaa loo baahan yahay tala midaysan iyo tawfiiqaa loo baahan yahay ummaddaana waxaa ugana in lagu hago waddada horumarka midnimo iyo tala midaysan in lagu hogaamiyo u baahan tahay waxaan ballan qaada hortiina ka ballan qaada ama hortiisana ka ballan qaada ummaddaa in cadaalad iyo sinaan aan ku hogaamino haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin runtii baan ka mahad celinahay dadaalkiina iyo soo dhaweyntiina beledweyne waxaa la rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inay doorasha ka dhacdo doorashadaasuna waxaa kusoo kordhi doono magaaladan intaasoo kun aqoqoona imaan doonto oo erge leh oo murashax leh oo midowkaan beengarayhaya leh gobasheediyaa laydinka rabaa soo dhaweynteediyaa laydinka rabaa amnigeedina waa laydinka rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo ciidamaduna amniga mas-uuli karaan haddayna bulshada qaybeeda kala doonayna la shaqayn maamulka keligiisna waxba qaban kariyo deegaan horumarsan ee nabadaada aragto bulshada iyo hogaankeeda midaysana waxaan rajaynayaa hogaanka iyo bulshaduba inay dhinaca soo jeesan doonaan taladooduna ay marayn doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabaa doorashada dhacayso insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo inay doorashadaa furan oo dadku ay ku qanacsan yihiin ayaa ka dhici doonta haddii ilaahay raalli ka noqdo guud ahaan hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne hadda ku sugannahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin guud ahaan bulshada waa arki doonaa gobol-gobolna waa arki doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin waxaan hoosta ka xariiqaa tabasho kasta ee jirto inaan qanci doonna haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin waqti dheer ilaa halla ilaa waqtigaanaad taagneedeen waxaan rabaa maamulka gobolka iyo midka degmooyinka gobolka hiiraan waan ognahay abaaro ba-anaa jiro hadday tahay biyo la-aan iyo hadday tahay baal la-aan intaba waan ognahay xaaladaas waxaan idinka rajaynayaa inaad warbixin kooban looga keentiin degmooyinka guud ahaan guddoomiya aad warbixin ka keento si aan hadday deeqaamin tahay iyo hadday meel xaalad degdega ka jarta tahayba aan uga jawaabno haddii ilaahay raalli ka noqdo waana sii bilaabi kartiin deegaanaday igu daran yihiin ilaa 3 goboloo booyado meelay iga daran yihiin degmooyinka iyo guud ahaan waxaad guddoomiye oo ruboor ka keentid hala sii bilaabo biyo dhaaminta haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin